بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم هسنتهين صحافة دمان غيبية كلا دوبن هل كان جوكتو waxaan jeclaan lahaa inaan u cadeeyo maanta baarlamaanka wuxuu ku balansanayeen kulankoodii caadiga ahaa ee la rabay in lagu doodo ajandaha mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka waxa laga yaabaa dad badan inay qalad u fahamsan yihiin markii la yiraahdo xildhibaano ayaa mooshin keenay una maleynayaan mooshinka inuu yahay shay wax lagu duminayo laakiin waxaan rabaa inaan xoogaa aan fahamsiyo mooshinka waa aalad ay isticmaalaan xildhibaanada haddii aan af Soomaali fudud ku sheegana waa soo jeedin mar waliba xildhibaanada ay rabaan inay soo jeediyaan baarlamaanka markay rabaan inay wax ku saxaan haddaba soo jeedinta laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ay ku saabsanayd in uu xilka isaga tago eedeyn badan lagu soo eedeeyay runtii waxay kala qaybisay xildhibaanada baarlamaanka oo aragtiyo kala gedisan ku kala qaatay muddo ku dhawaad 3 أسبوعنا هوش برلمانك وحيرناد أرنتاسي سيدا الله دمين لها الحمد لله ما أنت يسوق بجبودي وقدوميها سيد ديمقراطي وسكو عزلي وحل كان كجتجي رنتي ووحن ومهد علينا يو قدومي جواري جوانك ديمقراطية وقاطي سي نبتقلية إنه حل كمركل أو جتجي والله يا وحياة بدنا غلطات إن الدعين أو كل كان كيكوري وكلا لكن الحمد لله ما أنت يوصين نبتقلية قدوميها iscazilaadiisi ku aqbalay markii uu meelo badan ka qiimeeyay arintaasna waxaan dhihi karnaa waa go'aan runtii siyaasi oday Soomaaliyeed uu qaatay kuna qaatay markii uu fiiriyay danaha dadka iyo dalka sida ay ku jirtaba marka waa ugu hambalyeynaa wuuna ku mahadsan yahay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad dadkana waxaan rabnaa inaan intaas u xaqiijino arinta socotay inay ahayd arin dimuqraadiyad oo qof waliba aragtidiisa uu ku dhiibanayo xildhibaanada si peaceful ahna hadda lagu gabagabeeyay aad u mahadsantiin marka